بسم الله الرحمن الرحيم. كان ويدرس عليه قراها بوجا بلال أفكار كود دال وأنا بوجي كوبادة حنا هدور بوج أو كسب سن برشة أف سوماليا وحنا الله ضابعي أما بود ضابعدي برشة أفكار يدقن كالسوماليات وأنا نادي كدسن مقالة بوسطن قبل كماساتشوستس عرض أمريكان casharada buuggan ayaan si kooban ugu qaadaa dhigi doonaa muuqaaladan soo socda oo ka maanta kowka yahay waxaan ku bilaabaynaa alifbaada. Alifbaadu waa xuruufta loo adeegsado qorista iyo akhrinta afka. Xuruuftani tiraba waa 32 waa 10 shaqal ama 10 xaraf oo shaqala ah iyo 22 xaraf oo shibanayaal ah. Marka alifbaadu waxay u kala baxdaa shaqalo iyo shibanayaal. Shaqaladu waa furayaasha waana kuwa ugu muhiimsan. Waa codad leh dhawaaqyo gooni ay leeyihiin. oo mid walba dhawaaqiisa waa la soo tuuri karaa. Waxayna u kala qaybsamaan labo. Waa 5 shaqal oo gaagaaban iyo 5 shaqal oo dhaadheer. cod ahaan waa 5 shaqaluun waa 5 codun balse marna codadkii waa la gaabinayaa marna waa la dheerinayaa. Tusaale a e i o u a e i o u kuwaas waa kuwii gaagaabnaa. imikana a e i o u mar kale a e i o u waa kuwii dhaadheeraa ama shaqaladii dhaadheeraa. marka haddaan ku idhaahdo qor baabuur waa inaad qortaa erey 2 shaqal oo dhaadheer laga helayo. waxayna kala yihiin a iyo u. haddaad midkood gaabisid waa khalad, haddaad sii dheeraysidna waa khalad. waxay ka dhigan tahay oo aad 3 jeer qortid waxay ka dhigan tahay adigoo dhawaaqayo aad u qeynay baabuur qof dhaha ma jiro. laakiin baabuur baa yimid ama baabuur baa xaggan ka tagay waa la odhan karaa. kasii gudub. shibanayaashu waa 22 xaraf ma leh dhawaaq oo waxa loo yiri shib markaan qofku idhaahdo waxa ka dhigan tahay aamus. way aamusan yihiin. runtii ma aamusna cod ahaan ma aamusna oo mid walba codkiisu uu leeyahay balse kelidiis inaad ku dhawaaqdid baa adag. imka haddaan se idhaahdo xarafka ugu horeeyaan tilmaamaya ba laakiin ma soo tuuri karo codkii oo dhawaaqii ma sheegi karo. saas daraaddeed shibanayaasha xaraf kasta waxaa la daba dhigaa shaqalka a. suurtagal weeyaan waana la daba dhigi karay shaqalada kale midkood sida i oo waa la odhan karay bi laakiin waxaa la doortay shaqalka ugu horeeya si loo fududeeyo barashada afka. saas daraaddeed si aan u akhrino shibanayaasha waa inaanu dhahnaa ba ta oo waa inaan ba'da daba dhignaa xarafka a saan u sheegno ama u magacowno shibanahaas isaga ah. okay imika shibanayaasha ayaanu mid uga hadlaynaa oo dhawaaqiisa usoo tuuraynaa. ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya hamsu. shibanaha ugu dambeeya waxaa la yidhahdaa hamsu. meelo gooni ayuu la galaa. sida aanu casharada dambe ku faahfaahin doono xarfahan shibanayaasha qaarkood way ku adag yihiin dadka qurbaha ku dhashay inay ku dhawaaqaan balse haddii ay soo mareen malcaamad dugsi qur'aan ah way ku dhawaaqi doonaan si aan arki doono.